السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو داوود aan kula wadaago war degdega dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socda bariga iyo galbeedka magaalada Cerigabo weerar laga cabsi qabo in ciidanka maamulka waqooyi bari ay ku qaadaan magaalada Cerigabo shirkii nabadda Cerigabo oo qarka u saaran inuu fashilmo iyo qodobo kale oo waaweyn oo taabanaya arrimaha Cerigabo iyo wax walba oo ka qarsoona ayaan ku faaqidi doonaa ee soo dhawow haddii tay markii ugu horeysay nagu soo biir oo subscribe da channelkan muuqaalkan aad daawanaysa like saar aragtida qaybta commentiga inoogu reeb shirkii nabadda Cerigabo waxa ka qayb galaya madaxweynaha maamulka Somaliland Cabdiraxmaan Ciro madaxweynaha waa aandhe suldaanka guud ee beelaha harti suldaan Siciid suldaan Maxamuud Cabdisalaan Cali Shire iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo waaweyn oo ka socda meelo kamid ah geeyiga Soomaaliya shirkan dabcan waxa diiradda lagu saaraya sidii xogaha iyo wararku tilmaamayaan arrimo dhowr ah oo taabanaya masiirka iyo mustaqbalka maamulka waqooyi bari laakiin qodobada ugu waaweyn ee la filan kara inay shirka ka soo baxaan waxa kamid ah arrimo ku saabsan xaaladaha hadda taagan oo ay ugu weyn tahay arrinta la xiriirta in dhismaha maamulka waqooyi bari dib loogu laabto iyada oo la qaadayo tallaabooyin dheeraad ah oo ku saabsan xaaladaha hadda taagan xogtan helayno ayaa waxay tilmaamaysaa in 48 saac la soo dhaafay la dareemay culeysyo dhanka amniga ah oo ka imaanaya maamulka Somaliland iyo maamulka waqooyi bari calaashan dagaal ayaa laga cabsi qabaa inuu ka dhaco gudaha magaalada Cerigabo waxaana wararku ay sheegayaan in ciidamo fara badan oo ilaalo u ah Cabdiraxmaan Ciro iyo sidoo kale mas'uuliyiinta kale ee maamulka Somaliland ay soo buux dhaafiyeen meelo kamid ah magaalada Cerigabo iyadoo xogta la helay ay tilmaamayso in saacad walba laga cabsi qabo dagaal halkaasi ka dhaca Cerigabo xilligan waxay la ceerceeraysaa dhinacyo kala duwan oo iska soo horjeeda oo midba uu dan gaar ah leeyahay laakiin xogta la helay ayaa waxay tilmaamaysaa in saacadda ka dambaysa la filan karo in dagaalku uu halkiisa ka sii qorxo iyada oo macluumaadka la helayana ay sheegayaan in laga cabsi qabo in xaajadu ay tagto meel aan waxba laga qaban karin haddaba si aan ku xasuusiyo dhacdooyinkii halkaasi ka jiray waxaa jirta arrimo kale oo banaanka yimid oo la xiriira in maamulka waqooyi bari oo xilligan doonayo in duulaan lagu qaado Cerigabo markuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka soo laabto safarkiisa magaalada Laascaanood iyada oo go'aankan ay si wada jir ah u qaateen mas'uuliyiinta maamulka waqooyi bari oo sheegay in hadda wixii ka dambeeya aan gacmaha laga laaban karin dhacdooyinka halka ka jira iyo in si degdeg ah loo qaado tallaabooyin degdeg ah 4 xubnood oo kamid ah mas'uuliyiinta maamulka waqooyi bari qaarkood waxay warbaahinta u sheegeen in la qaadayo tallaabooyin dheeraad ah walow tallaabooyinkaasi ay ku sheegeen inay noqon karaan kuwo looga jawaabayo ficilada iyo gardarrada Somaliland ay ka wado gudaha magaalada Cerigabo oo ay u arkaan inay tahay fariin muhiim ah oo xilligeedii loo baahnaa timid oo ku saabsan in Cerigabo ay ka mid tahay maamulka waqooyi bari shirka nabadda Cerigabo waa uu furmay waxa ka qayb galaysa idin sheegayo suldaanka guud ee beelaha Garxajis iyo sidoo kale suldaanka guud ee beelaha Harti madaxweynaha Somaliland waxaana dhoolatus ay tan u tahay maamulka waqooyi bari oo la leeyahay annaga ayaa Cerigabo ku sugan Cerigabona waxay noqon doontaa magaalo muhiim ah oo ka caagan cid walba oo doonaysa falal amni darre inay ka fuliso gudaha magaalada xogtii ugu dambeysay oo aan helnay ayaa waxay tilmaamaysaa in asbuucyadii la soo dhaafay la dareemay culeysyo waaweyn culeysyadaas ayaa la sheegay in intooda badan ay ahaayeen kuwa taabanayay masiirka iyo mustaqbalka maamulka waqooyi bari dhaqdhaqaaqa socda dagaal laga cabsi qabo inuu ka dhaco Cerigabo iyo ajendayaal waaweyn oo ku husduugan waa kuwa ugu waaweyn oo xilligan la filan karo in ay markaasi dhex maraan ama ay ka dhacaan dagaalo iyadoo xogta la helayana ay tilmaamayso in saacadda ka dambaysa la dareemayo culeysyo dhanka amniga ah oo ku saabsan xaaladaha halkaasi ka jira waxaase jirta in Cabdiraxmaan Ciro iyo tiimka la shaqeeya ay dhankooda ayana doonayaan in Cerigabo la difaaco halka waqooyi bari iyo garaadadu ayana ay doonayaan in magaalada duulaan lagu qaado laakiin haddii aad isku soo wada duuduubtid xogtu waxay ku tusinaysaa ama ay ku sheegaysaa in ay jiri karaan dhacdooyin kala duwan oo la xiriira arrimaha amniga oo la arki doono iyagoo soo ifbaxay bilaha ama maalmaha soo aadan haddii aan si degdeg ah xal looga gaarin tabashooyinka halkaasi yaala dadka khubarada arrimahan la socda ayaa aaminsan in loo baahan yahay in si degdeg ah wax looga qabto
dhacdooyinkaasi inta aysan xaajadu noqon meel bahallagaleen ah oo aan waxba laga qaban karin maadaama dhinacyadu marka ka dambeysa ay qaadayaan tallaabooyin dheeraad ah oo xaajada dab ku sii ridaya. waxay ku soo korra daawadayaal waa inuu wararkeena dambe haddii tahay markii kuugu horreysay nagu soo biir subscribe janalkan waxaad la socon doontaa guud ahaan wararka ku saabsan shirka magaalada Ceerigaabo halka uu ka bilowdo ilaa halka uu ku dhamaado qodobada laga soo saari doono iyo guud ahaan xogaha amuurtaas ku saabsan qaybta commentiga aragtidaada inoogu reeb muuqaalka like saar soo dhawow saaxiib sharaf ayaa inoo tahay inaad nagu soo biirtid mar kale maalin wanaagsan.